السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن مركز سودو كسودو كرنت أكاديمي ما أنت وحن تعلهاي إن هالكان إذن كله وذاقو 10 ضد كو إن بدن أي سوي ديان أو كسابسان لما يستركا أوداسيتيغا أو أحسد عد كلو شرطو قيب هوري أيا شرطة أو هالكان كو شرطة أو عاد سودا وين كرتدو أو basic iyo bilowga sida loo idkreesto maanta hadii alla idmo waxyaabaha aan ku baran doono waxa kamid ah casharkeena hadii alla idmo intan oo qaybood ayaan baran doonaa hadii alla yiraahdo tusaale ahaan oo kale waxaan arki doonaa sida codka loo soo furto oo aad cod ku save garasna u soo furtid sida loo jarjaro codka oo copycat iyo paste baan kala baran doonaa sida laba cod la isku dul saaro oo music iyo codkaagi oo kale la isku dul saaro sida loo adeegsado selection toolska oo iyagana muhiim u ah sida laba cod la isku daro oo la isku jarjaro codka volume-kiisa sida loo dheereeyo sida codka shanqarta looga saaro sida cod mono ah stereo loogu bedelo ama stereo mono loogu bedelo sida loo save gareeyo iyo farqiga u dhaxeeya export iyo save farqiga u dhaxeeya ayaan arki doonaa insha Allah hadii alla idmo Audacity-ga markaa soo furanayno waa software-ka inta hore basic-ga qolad idin soo aragtay way aragtay waxa ku soo baxaysa shaashadaas markaad soo furatid shaashadan do not show me this again bas ka oran kartaa waxa macna ma sameynayso okay baad leedahay marka shaashadii waa tan marka aragtay cod in soo furtid marka sida caadiga ah ee software-da kale oo kale waxa tagaysaa file kadibna open waxaan soo furanaynaa cod aan ku save garaysanay folder-ka halkan ku jira oo ah audios codkan marka aan soo furano tusaale ahaan oo kale kaasaan soo furaynaa 1 to 10 audios 1 to 10 halkan waxa ku duuban 3 4 2 1 5 6 9 8 7 10 waxa ku duuban 1 ilaa 10 meesha 1 un baan hal u iri markaan duubayay marka 1 ilaa 10 oo isdaba marsan si aan marka u hagaajino halkaan aan shaqada ka wada qaban doonaa oo aad arki doontaa sida loo hagaajinayo marka rabno inaan codkan isku edit gareyno wax u jarno waxaan tusaalahan u soo qaatay waxa weeye mar walbo aad wax ka dhex jaraysid cod ama aad isdaba marinaysid tilaabadan u baad maraysaa tusaale ahaan oo kale 1 oo kale xageeba ku jirtaa 3 4 hal oo kaasaas baarka ah wakaas markaan play gareynay click baa ku siinaya castle-ka kadibna play baan leeyahay hal waka stop highlight baan saarayaa hubi hadana kadibna cut baan leeyahay bilowgaan tagaya halka hore kadibna halkaas laftigeeda ayaan paste baan leeyahay markaan intaas sameeyo waxa halkan ay soo baxay play garee 3 4 halka laba ka dhiban Soomaha labo aan raadino labo wataas kadibna sidoo kale highlight baan saarayaa cut ayaan leeyahay meeshii ay lahayd baan tagayaa labo kadibna paste ayaan leeyahay waan jaray maxaa ku xiga 3 way joogtaa 3 4 way joogtaa 5 waa joogtaa 6 waa joogtaa 9 8 7 okay toddobadaas ayaa u baahan halkan 6da inaan soo gelino highlight baan saarayaa 7 kadibna cut baan leeyahay meesha aan dhigi lahaa baan arkayaa 6 ayay ku xigtaa halkaas u dhig calaamadda halka dhigo kadibna paste dhaho sidaas waa sida marka codadka loo jarjaro sida aad cod horay ku yaalay aad xagga dambe u keensanaysid waa dariiqa fudud ee sahlan marka hadda codkii uu suuqa jarjaran yahay tilaabada markaan ka baxno marka sida codka loo soo furtay loo jarjarto markaan ka baxno waxaan fahanay cut iyo paste ayaan baranay laakiin hadda waxaan sameyn doonaa inaan taraagyo kale isdul saaran inaan wada edit gareyno file open cod kale soo furanaynaa oo isla 1 iyo 10 ah halkan waxa ku jira kan okay iska dhig halkan waxa ku jira halka bilowga noo gee play garee okay waxaan arkaynaa halkan waxa ku jira 1 2 3 4 taraag ayaa is hoos yaala afartan taraag waxa yaani ku jira 1 ilaa 10 marka afarta taraag waxay la mid yihiin adigoo afar cod isdul dhig hoos dhigay marka aad afarta cod isku edit gareynaysid waxaad sameynaysaa halkan selection toolska ayaan ku shaqeysanaynaa selection toolska waa intaan halkan taala intaas soo soconaysa halkaas aad noo gali marka calaamadda hadda isticmaalo waa kaasarka caadiga ah tan haddaan isticmaalnana waxa weeyaan move gareyna wixii
tan haddaan isticmaalnana waxa weeyaan dheerayn iyo gaabin saddexdaasaan isticmaali doonaa taa iyo taas ayaan isticmaali doonaa si marka aan codkan u dhageysano hal cod u dhageysano oo aan u maqalno hal mid softwarekan wuxuu leeyahay laba wax oo muhiim ah oo kala ah solo iyo mute solo macnaheedu waxa weeyaan taraagan kaliya iyo maqashiyo codkiisa mute macnaheedu waxa weeyaan taraagan iga xidh codkiisa marka si aan u dhageysano waxaan samaynaynaa codka taraaga uu ku jiro ayaan dhageysanaynaa kadibna kaas kaliyaan dooranaa kaa kaliya active ah balay gale 3 7 okay kow kuma jirto soolada ka qaad kan ku xiga haddana balay gale kow okay kow iyo labo oo isku xiga waa kuwaas kow iyo labo marka waan helnay meesha ku jiraan waa kuwa si aan u sameeyno marka calaamadda marka noo tahay si aan u qaadano calaamadaasaan qaadanaynaa kuwan iska soo fogee saa u qabo uu ku move garoobaya saa u soo fogee kow iyo labo qaado halkaa geey saa u rar marka halkaa waxaa isugu kaa xigaya kow labo saddex ayaa isugu kaa xigaysa marka solo dheh play garee kow labo saddex okay 7 afar baa ku xigta aynu afar raadino calaamadda haddana kan solo saar halkaa noo play garee 10 okay ma aha waa 10 tan haddana noo play garee 5 6 9 halkaana kuma jirto of course tan dambe ku jiraysaa marka tan ugu hooseysa ku jiraysaa halkaa ka bilow afar wataa marka afar wataa afar xagee bay leedahay halkan oo kow labo saddex halkaasay leedahay space u samee kadibna soo qaad saa usoo qabo intaad dul tagtid un muuska qabo muuska halkaas cliptaas unbaad qabanaysaa muuska labadaa meel buu kale leeyahay muuska taas ayaad saa u qabanaysaa kadibna kor baad u jiidaysaa halkaas saa u geey afar wakaa marka saasaad isugu xirxiraysaa wixii aad doonaysay marka aad saa isugu xirxiratid oo codadkaaga aad saas ka dhigatid waxaad oo aad move garaysid mid walba oo aad halkaa track ka wada dhigatid trackyadan kale waad iska xiraysaa close kaa unbaa kusoo haray oo codkaagii ku hagaagsan ah ayaa kusoo haray halkaasna waxa weeyaan sida yacni loo isticmaalo trackyo kala duwan la isugu dhidgareeyo intaasi waa la fahmaa filaya waxaa soo hartay oo aan rabnaa inaan samayno inaan cod mono ah aan stereo u bedelno cod stereo ahna inaan mono u bedelno oo aan isku bedelno mono iyo stereo waxay kala yihiin tusaale ahaan oo kale mono iyo stereo waxay kala yihiin hadda codka halkaan noogu furan ee aad arkaysid wuxuu leeyahay laba dhinac laba lugood ayuu leeyahay laba lugood ayuu leeyahay oo tanna waa left L iyo R waa marka la play gareynaya halkaas laga arkaya playde loo sameeyo Audacity-ga codka loogu duubo marka labadaas soconaya labada layer marka aad rabtid inaad mono haddaad haysto cod ah monuhu waxa weeyaan codka sidan u samaysan kan aan ka dhigno mono imika render mix stereo tractor mono waa codka sidaa u samaysan inoo koobiye hal meel aan wada geysano kadibna stereo audio track okay monuhu waa codka sidaa u samaysan sidaas kan hadda waa laba cod oo isdul saaran weeyaan kanna waa cod kanna waa cod kani waa mono kanna waa stereo si marka aan ugu bedelno marka kan monaha si aan stereo ugu bedelno highlight baad saaraysaa kadibna waxaad tegaysaa tracks kadibna waxaad leedahay stereo track to mono hal lug buu noqonayaa sababta loogu bedelayo marka mono waxa weeyaan marka haddaad rabtid inaad cod stereo ah aad meel mono ah ku baastigarisid kuma dhigmayo oo haddaad rabtid inaad ku dartid tusaale kale codkaanaad koobiyeysatid waxaad aaday kan oo mono ku ah waxaad rabtid inaad ku dhex dartid halkaasaad geysay baasti baa tiri okay wuxuu ku leeyahay stereo kuma koobiyeysmayo mono marka waa inaad isku abtir ka dhigtaa si aad uga dhigtid marka kan codkaagii ayaad tegaysaa waxaad leedahay tracks kadibna stereo track to mono haddaad koobiyeynaysaa marka koobi kadibna codkii baad tegaysaa aad rabtay inaad dhexgeysid halka paste wuu ku dhexgeynaya haddeer marka haddaad isla kan marka haddaad doonaysa inaad stereo u bedeshid marka codkan aad stereo ku celisid kan oo kale imika haddaan rabnaa stereo ku celino waxaan leenahay tracks add stereo track baa halkaa yaalla kadibna codkeenni waan soo koobiyeysanaynaa halkaasaan imaanaynaa bast baan leenahay kii hore waa iska close garaynaynaa isagoo stereo ah halkaas
marka kaasna waa midkaas waxaa soo haray tallaabada kale oo iyadana muhiimka waxa weeyaan sida codkan iyo cod kale la isku dul saaro sida codkan iyo cod kale la isku dul saaro codkan hadda noo furan waa cod yaroo aan anigu duubay oo ah nabad dhegeyste soo dhawow barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa okay waa cod yaroo aan duubay waxaan inaan music hoos dhigno marka aad inaad cod music hoos dhigtid software-ka wuxuu leeyahay laba qaab oo wax loo soo furto mid waxa weeyaan file open oo haddaad open wax furatid wuxuu kuugu furayaa meel kale oo cusub waxaa kaloo jira qaab kale oo ah cod kale in meeshan lagu soo daro oo ah file marka aad inaad cod kale soo dirto waxaad leedahay file kadibna import audio codka artina soo qaadatid ayaad halkaa ka soo qaadanaysaa tusaale kale music kaas oo kale cod ka soo qaadanaya kaas oo kale ayaan soo qaadanaya waxaan okay iska dheh marka muxuu noo sameeyay codkeena wakaa kana uu noogu daray marka uu dheer yahay codkan si uu noola ekaado waxaan iska jaraynaa inta dambe aan iska jaraynaa inta dambe hoosa iska jaraynaa marka jarayo codka hadayna waxay inaan inta 1 2 gasaan u kala jarjaray marka harta cod inaad jartid click baad siinaysaa meesha harta inaad ka guysid baad click geynaysaa control plus I baad leedahay then uu ku kala go'ayaa kan wakaasa uu move garoobaya hadeer uu kala dhaqaaqaya kadibna iska highlight garay intaas delete baa iska leedahay then okay halka marka fit screen noo dheh codkeeni iyo music baa isla saaran nabad dhegeyste soo dhawow barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanay si marka ay u qurux badnaato musican iyo codkan si uu u qurux badnaado waxaan sameeynaa marka hore musican ku bilaabaynaa kadibna codkan soo gelinaynaa music hoos baan u dhigaynaa codka kor qaadana taas waxa la yiraahdaa marka inuu caadi u soo galo kadibna fade out hadana fade in inuu codku saa u kaco oo sidaan noqonaya kanaan qaadaya codkayga saa u soo durjinaya music markuu 5 seconds meelaha socdo wakaasa secondska markuu socdo calaamadaasaan dooran kadibna halkaasaan tegaya saasaan u calaamadinaya meesha koowaad ee aan rabo inuu ka bilowdo hoobadku meeshaan inuu ka bilowdo kadibna meel ka dambeysaan tegaya saasaan u qabanaya codkaygii haddana saa soo dhe soo yara durji okay hadda balay garee marka nabad dhegeyste soo dhawow music wuu socdaa soo qaadanaynaa sida loo sameeyo Audacity-ga Okay. codka lagu duubo waxaad ku arki doontaan qaybo kala duwan Very oo good. ku saabsan hadka very good music wuu socdaa laakiin wuu gaaban yahay halkaas oo kale marka aan soo galno soo dhawaada barnaamijkeena ku soo dhawaada barnaamijkeena waxaan rabaa hadana music inuu kor u soo kaco isla sidii baan sameynaya calaamadaasaan dooranayaa waan calaamadinayaa meeshan sidaas cadaanka markuu ii fuulo kadibna halkaa labaad ku xigtaan qabanaya saasaan usoo qaadaya markaan ku soo dhawaada leeyahay saas u soo kacayo ee ku soo dhawaada barnaamijkeena saas oo kale kan oo kale hadana space raba inaan geliyo meesha waxaan sameynayaa halkaas calaamada geenaya dabeetana control plus I halka tanaan qabanaya saas u durjinaya marka kale hadana saa u qabo saa u soo gaabi hadana okay saa waa hagaag maanta waxaan baran music-ina wuu socdaa marka sidaas weeyaan halka dambe hadana doonayo inaan saa ugu qaado saasaan u yareynaya kadibna kor baa saa ugu soo qaadaya saas u ahaanaya codkayga music-gayga saas qurux u ahaanaya marka aad saa u edit gareysatid marka oo aad labada track isdul saartid haddaad doonaysid inaad audio ka dhigtid oo aad samaysid waxaad leedahay file markaad inaad save gareysid export baad leedahay kadibna codkii magaciisaad ku qoranaysaa oo ah tijaabo oo kale then save baad leedahay halkan marka intaan save aan gaarin aan ka noqdo halkan file markaad tirahdid oo aad export tirahdid oo aad codka ku qortid halkan waxaa furan mp3 baa furan yani waxyaabo kala duwan buu ku tusaya oo ah options fara badan amaba options kan kale oo ziyaadada ah buu ku tusi karaa oo ah kuwan oo badanaa halkan ku soo saaraa marka options kan macnaheedu waxa weeyaan audio-ha marka la save gareeyo quality uu ku save garoobaa mar walba quality-ga codkaaga uu kugu save garoobayo markaad options tirahdid kani waxa weeyaan 128 kb per second 128 kb buu second-kiiba uu balay gareynaya haddaan halkan yarayno marka oo aan kuwan ka dhigno 56 oo kale kb per second haddaan ka dhigno quality-ga codka hoos u dhaacaya oo lumaya laakiin waxa aad u wanaagsan badanaa inta caadiga ah ee normalka oo 128 kb per second marka okay baad leedahay codkii magacii baad ku qoranaysaa kadibna save baad leedahay saasuu codkii
waxaan qoraalada halkan ku qoran musican ayaa watay kadibna waad iska masaxaysaa saas delete click click delete click click delete click click delete haddii kale markaad codka play gareysid traga hadhow ayuu kuu soo saaraya kadibna waxaad leedahay okay kadibna wuxuu kuu soo saarayaa digniintan oo ah haddaad codkan save gareysid hadhow ma kala saari karaysid wax miyaa kuugu dhiman marka haddaad mar u baahnayn oo aad dhamaysatay codkii music isku daraya okay baad leedahay intaan baad sugaysaa uu ku dhameynayo wuu dhameeyey saasoo cod ku dhameeyey kadibna codkaagii desktop ku yaala tijaabo wakaas codka wakaas waxaan soo haray dariiqa ugu dambeeya aan samaynayna waxa weeyaan in codka shanqarta laga saaro codka shanqarta si looga saaro waqtiga ugu dheeraaday insha Allah ma geli doono maanta 10 dambe ayaan ka soo duubi doonaa sida shanqarta looga saaro oo codkan oo kale nadiif looga dhigo okay marka waa waxa weeyaan shanqarta sida looga saaro weeye waan arki doonaa aad baad u mahadsan tahay haddii aad wax su'aal qabtid commentiga dambe igu reeb aad baad u mahadsan tahay sidaad ula socotay casharka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo